بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marwooyin dacalada adduunka meel walbo aad ka joogtaan xaajadu waxay taagan tahay ayo madigay ayay taagan tahay xasan sheekh maxamuud xaajadii way la dheeraatay way la fogaatay shirkii wuu sii xumaaday beesha caalamka soo gashay arintu waa hadha waxaan rabaa marka gudo iyo dibadda Soomaaliya istiraatiijiyadeeda siyaasadeed meesha hadda ay joogto iyo xaaladda shirkan ayaan rabnaa wixii la isiri in aan idin la wadaagno marka laakiin waxaanu codsan lahayn qalin iyo buug inaad qaadataan casharka gudaha markuu yahay qalin looma baahna inta badan laakiin marka dibadda ay ku soo biirto istiraatiijiyadu way fogaan kartaa Axmed Madoobe iyo lafta gareen way ka adkaadeen Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Madoobe kitaabadiisu la soo baxay lafta gareenna 180 digrii buu iswareejiyay ruuxa ku soo noqotay geesinimo la yaab leh ayuu la yimaaday wuxuu yiri waa in doorasho la aadaa Xasan lacagtii marka laga qaatay dhulka aadan Madoobe wuxuu la soo baxay dib aan la arag ayuu isagana la soo baxay mar kale marka inahaas ay ku warwareegi doontaa Puntland way ku warwareegi doontaa Somaliland way dhawaaqday marka war ma moogidin maantay waxaan rabaa horta sheekada gudaha inaan ku galo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu miiska soo saaray uu leeyahay 2025 bisha June doorasho aan ka qabanno dalka inta ay suuragal noqoto waxaa lagu yiri gobolka Banaadir ka qaban weyday daraad markaan ballanay ma aqligeena ku dheelaysaa sidaas lagu yiri waa inaan mandate helnaa waa in doorasho dadban aan galnaa waliba odayga wuxuu yiri waan xanuunsaday wajaca itaabtay nasiinaan u baahanahay xalay markii la isku jilba murxay nasiinadii isagoo ku maqan maantay hadda waa la isku soo laabtay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu miiska soo saaray nimayo waxaan oo dhan intaan iska dhaafno amniga aan ka wada hadalno amniga Soomaaliya aan ka wada hadalno seen uga wada hadalnaa ciidamada admis ee hadda jooga ama AMISOM aan ka wada hadalno hore AMISOM waxaa ka horeeya doorashada ajandaha waa sidaasi doorashada adiga doorasho ma noogu yeertaa niyo waa ku xushmadaynay intaan ka badan kuma xushmadayn karno Xamse Cabdi Barre iyo Axmed Madoobe iyagana waa isku sii dhaceen Roble iyo Xasan waa isku dhaceen Asadiano iyo Xasan waa iswareysteen Axmed Madoobe iyo Fartaag waa isku dhaceen intaasaan ku macnaheeyo horta base kuugu sheegaya Axmed Madoobe Xamse wuxuu ku yiri warniyow ma arkayse in Kismaayo oo hadda doorasho aan ku qabsan karo oo aad ma arkayse macnaheeyo dhibaato igu soo rabtaa miya because Axmed Madoobe doorashada qof iyo cod waa wadkiisii Xasan Sheekh Maxamuudna doorashada dadban waa dhimashadiisii dambi malahan ruuxi ilaahay ka daayo dawa malahan ruuxi wad ku soo dul joogsado fanaankii murusada yiraanuni Soomaan marka macnaheeyo Xasan doorasho qof iyo cod ah ayuu doonayaa ruuxda macnaheeyo way ku soo noqonaysaa Axmed Madoobena doorasho dadban ayuu ku noolaan karaa xisaabta meeshaas ay joogtaa marka Xamsow fuusta igu soo riixin waay waxa ay rabtid waxa weey in aniga la iburiyo adiga la igu ka bedelo Fartaag iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe qartab
axmed madoobe wuxuu yidhi fartaagow adinka mareexaan adinka ah iyo majeerteen isbahaysi baad dhisateen oo aad rabtaan in kismaayo aad kagala wareegtaan kursigaygii ogaadeen booskii ogaadeen inaad idinku qabsataan aad rabtaan waan idin fahmay mana shaqaynayso fartaag iyo axmed madoobe markii sheeko daarood la isla galay bartaasay kala degeen axmed wuxuu yidhi shirkan daarood oo dhan waa inuu jooga waa in puntland la helaa waa in qaatumo la helaa qaatumona ma ogola hadda waa kuu sheegay shalaa 10 ku siiyey allaare marka siciidani qaatumo inay gooni u go'do ma ogola asad diyaano garabka taageersanna qaatumo inay gooni u go'do ma ogola meel iyagu ay xoreysteen ayay u haystaan ceelkaa holhol intaasi waa fahamta waxaa kuu soo haray xasan sheekh maxamuud iyo rooble way iswaraysteen iyaguna wayna isdagaaleen aagga garacad ilaa iyo xaradheere gobolkaasi mudug waxaa laga helay ceel saankiisi la hubiyey oo shidaal ah waxaanoo dhan waa khayraadka dalka waay dagaalka money haddaba xaradheere xasanow ma adaa maamulaya mise anaa maamulaya soonka ceelkaasi ilaa iyo garacad shidaallo la hubiyey baa ku jira ma adaa maamulaya mise anaa maamulaya si kale haddaan kuu tuso wacaysle miyaa ka talinaya mise habar gidir oo saruur u matalaysa ilaan xaradheere waxay u qaybsan tahay 2 qaybood baf qayb wacaysle ah iyo qayb saruur ah waana kan ciidankii habar gidirta gaajo lagu dilay oo macnihii ka soo carooday meeshaasi halka ciidankii ma arkayse wacayslaha qasnada dowladda loo furay bariis iyo kalluun iyo adduunyo ay cunayaan marka sidaasi awgeed istiraatiijiyad bay ahayd taa mar kale isku dagaaleen xasan sheekh maxamuud iyo maxamed xuseen rooble okay asad diyaana isagana wuxuu leeyahay xasanow aniga daarood waan isku duway garacad anaa hadda gacanta ku haya ee xaradheere ma haysaa xasan taa bidhaa waa wajacaansanahay sug amniga meel aan ka soo saaree nimankan xisaabta meeshaasay maraysaa nimankii daljir ahaa haddana iyaguna dibay isu soo abaabuleen waxaad mooddaa inay soo noolaanayaan iyaguna waxay leeyihiin baydhabaan weerar ku qaadaynaa iyo kismaayo meeshaasaa diiradda noo saaran meel kaloo aan ku soo noolaan karno ma hayno aan ku ururiyo marka shirka sidaasi markuu yahay hal qodob ilaa hadda la iskuma raacin until now shirka wuxuu ku eg yahay maalinta isniinta ah joogitaanka dowlad goboleedyada laakiin in ay sii joogaan waa laga yaabaa iyagoo caalamka u tusaaya annaga waan ogolnahay doorasho laakiin waxay ka socon la'dahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa la isku marqaatiyeynayo waa beesha caalamka faranjiga qodobkaas waad haysaa xasan sheekh maxamuud shaqada beesha caalamka u dirtay ayaan kuu sheegaa marka waxay ku dhaheen arbacada ilaa arbacadaan ku sugaynaa arbacada ma 9 bisha wixii arbacada idinka soo baxaana khamiista waan hirgelinaynaa annaga stanbay aan ku jirnaa xalane ilaa arbacada waxaan kaa rabnaa 3 qodob si kale haddaan u dhigana 2 qodob qodob koobaad raalli ahaada ragaba ay ahaayeen doorashada waa tan dowlad goboleedyada iyo tan federaalka 2026 doorashadii sidaan iyo sidaan bay u dhacaysaa waana doorasho dadban shaqada aan kaa sugaynaa xasanow dowlad goboleedyaduna maalin hebel wuxuudu way qabsanayaan iyagaa ismaamulaya dastuurka siduu yahay qodobkaasi waa kaa sugaynaa qodobka labaad dastuurkii 2012 kowdii agoosto garowe lagu soo heshiiyey oo dhammaystiran macnihii
aan waxba laga bedelin sidii la iigu dhiibay sidaasaan ku soconayaa wixii hadda laga bedelayna waan ka noqonayaa waa laga rabaa gogasha garowa taalana waan ajiibay waan ogolahay waan raacsanahay saddexdaasaa laga rabaa iyo qodob ka baxsan oo ah waxaan oo dhan waa baal maray dagaal baan diyaar u ahay oo xalana aan la galo labadaas mid aan ka helnaa leeyahay haddaan marka kuu soo koobo xasan waxaa lagu yiri arbacada waxaan kaa sugaynaa hogaamiye kooxeed baan ahay oo muqdisho dhex fadhiya oo Soomaaliya macnii u sareeya yaa ii imaan kara ina cadaysatid ama in ma arkayse macnii dhabaha Soomaalinimada ma arkayse sida federaalka uu yahay wadar ogol ina la timaadid wadadii farmaajo ay taagnaayeen saamilayda ay taagnaayeen Puntland ay taagnayd lafta gareen uu taagnaa Axmed Madoob hadda uu taagay xasan waajibka loo diray waa kaas waxba ku warwareerina kow dawlad goboleedyada iyagana waxa loo diray waajib waxa lagu yiri haddii shirkaasi ay ka soo baxdaan waxaan idin ka rabnaa inaad ku qabataan shir jaraa'id airport ama goboladiina markaa ku noqotaan inaad shir jaraa'id ku qabataan maxaan idin ka sugaynaa waxaan idin ka sugaynaa doorashada loo dhan yahay ee dawlad goboleedyadan qabanayna cid walba oo dan kale doorashooyinkan diyaaran idin la nahay soo gala iyadoo fawdo aan ahayn iyo qodobka labaad oo ah macnii haddii macnii xamar wax ku soo heshiin weydaan shir 2026 ilaa laga gaarayo shir weyne soconayo Soomaali oo dhan laga soo qayb gelinayo ayaan dalka ayis macnii ugu talinay shirkaasi ilaa 2026 in uusan kala joogsanin si dalka loo badbaadiyo shirkaas oo beesha caalamkan ay taageerayso doorashada dawlad goboleedyadana beesha caalamku ay garab taagan tahay labadaasaan idinka rabnaa aamus idinka ma rabno dhawaaqan idinka rabnaa wax cad hadaa diidaan idinkuna dawlad goboleedyadu wax kasta oo mucaarad ah oo idinka soo horjeeda ayaan daaqadaha albaabada u furaynaa waana soo taageeraynaa nidaamka federaalka lagama leexan karo nidaamka wadar ogolka lagama leexan karo xalane sidaasay tiri waana warkooda aad loo dhageystaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed kii Gmail ahay hada Gmailada dhex fadhida sheekada telefoon way ka tagtay niyow xilligii telefoon la isu diray sheekada way sii dhaaftay Gmail way buuxsameen isagana macnihi meesha la yiraahdo xalane Gmail uu buuxiyay wuxuu yiri kan ana aqaana aqli fooraru wata dalka isaga isku gubay dadka isaga isku gubay qabiilaadka isaga isku diraaya one day kuma darsan karo hadduu ku darsado ana dhintay Yoweri Museveni isagana liif ku saaray Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Gmail u diray Yoweri muxuu ka xanaaqsan yahay masaraan keena meeqa sana aniga Soomaaliya ku dhimanay meeqa sanaad ilahaydeen macnii waxaan isla nahay walaalaheena hawiye aan isla nahay ma idinka yeelaya maantay masaari oo Suudaan soo gubtay oo ma arkaysa ma geeska Afrika aan ilaashanayno no ma khayraadkeeda in masaari gacanta loo geli no Yoweri isagana meeshaas uu taagay ayaan dhaweyd waa kula wadaaga warqadu u soo diray ee hanjabaadda ahayd villa Soomaaliya xamse xataa laga qarinay waatii xamse uu lahaa annaga macnii carab ma arkayse ma keenayno masaari ma soo wadno Yoweri baa lagu qancinay baydhaba intuusan aadin haddaba Sheekh Shariif Sheekh Ahmed wuxuu ku yiri Yoweri oo ma maqashaa baabuurtan xabadda aan karin oo meesha ku jooga dabaabaadkan haddii hubka la keenay masaari ay keentay oo ku jira burburiyaasha gawaadhida xabadda aan karin ku jira la kala boobo yaa hadhowdii hay eedin dalka meesha u socdaan ogahay nimankan meeshay u wadaan aan ogahay anaa hawiye ah Xasan iyo saaxiibadiisu hawiyay u baday i warso aniga
nimankan waa mooryaan dalkan mufsidiin waaye anaa duur soo galay anaa shabaab ka soo galay maxaakiim ka soo galay anaa soo dagaalamay kuwaan anaa kaa aqaan ha xubkan iyo baabuurtan in lagaa burburiyaa la rabaa hadhowdii sheekh shariifow maxaa igu sheegi weyday ha idhihin yuweri musafinina uu soo karaar qaadanaya xisaabta meesha ay kuu joogtaa soomaan qoorqoor iyo axmed madoobe way isku dhaceen iyaguna xasan sheekh maxamuud qoorqooru qol la galay wuxuu ku yidhi sanad baan ku siinayaa madasha igu difaacuu yidhi marka miiskii la isugu yimaaday axmed madoobe uu yidhi war doorasho qof iyo cod ma shaqaynayso doorasho dadban baan aadaynaa yaana la jikaarin baashaan sidaan kuma shaqaynayso markuu yidhi qoorqoor sanadaa loo ballan qaaday mogta xaaladiisu waa hadhahadha waa lagu dhegay maad salaadna waa kaa meelaynaa baa layidhi uu soo booday wuxuu yidhi axmedow adiga dowladdii horena sidaanaa ugu taagnayd farmaajo markuu joogayna ninka macnihi ka shaqayn waayo waa adiga haddana dowladda soomaaliya aday kaa shaqayn laadahay what's going on ma ogolaatid macnihii dowladda maa raacdid soo jeedinteeda niyow adiga haddii lagu addoonsado oo kodham aad tahay oo lagu biilo aniga la ima biilow yidhi aniga qof la biilaa ma ahi saacaddaan rabaan doorasho qaban karaa kaalmo uma baahni ilaalo kale uma baahni waxaygu way iskor saaran yihiin 4 xaafadoodaan dhex joogaa meeshaasna anaa boqortooye ka ah hadda marka sidaasi awgeed haddii adiga lagu laaluusho ama naftaada aa u baqaysid waa miiska dhexdiisii saaxiib hana sheeganaa lirniyow isku shaqo ma nihin si kale haddii loo dhigo adiga xasan hawiya isla tihiin maba idinkala jecliba xisaabta meeshaasay ka degatay xasan marka waan wajacaansanahaye doorashooyinkani waxaan aan ka boodno horta dibaan kaga hadli doonnaa amniga aan ka wada hadalno yidhi marka saacadihii ugu dambeeyey amniga laga wada hadlaayo marka waa kee khiyaanada fiiri marka yaa kan waay kan soomaaliya u baahan tahay